Baakadahaaga cuntadu waxay ku daadinaysaa Microplastics Cunto kasta. Daraasadu waxay daaha ka qaadaysaa. Kaliya inaad u isticmaasho baakadahaaga cuntada habka ay tahay in loo isticmaalo ayaa kugu filan inaad ku wasakhayso mashiinnadaada rushaynta microplastics. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe-si. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Dib u eegis adag oo lagu sameeyey 1.3 cilmi baaris oo saynis ah oo ku saabsan wasakhowga cuntada microplastic ayaa lagu ogaaday ficilo fudud sida furitaanka dhalada cabitaanka caaga ah ama isticmaalka looxa goynta balastikada ah waxay hiri kartaa walxaha yaryar ee bolimerska caadiga ah. Xataa dhalooyinka dhalada ah ee isticmaala bac balastig ah, sanduuqyada bisa caag ah, koobabka qaxwaha ee la tuuri karo, bacaha shaaha caaga ah, bacaha balastiga ah, iyo weelasha balastiga microwave-ka ah, waxay daadiyaan microplastic sida bisad Persian ah, waxay daadisaa dhogorta guga. Dhibaatada koox ay hogaamiso biologiga Lisa Zimmerman oo ka tirsan madasha baakadaha cuntada ee aan faa'iido doonka ahayn ee Switzerland ayaa leh waa mid meel walba taagan. La xidhiidha microplasticsku waxay ku ururi karaan maskaxdeena in ka badan keliyaha iyo beerka. Tani waa caddayntii ugu horraysay ee nidaamsan ee ku saabsan sida caadiga ah iyo sida loogu talagalay isticmaalka cuntooyinka lagu baakadeeyey balastiga ay ugu wasakhaysan yihiin micro iyo nanoplastics. Zimmerman ayaa u sheegay waxaan ogaanay in baakadaha cuntada ay dab ahaantii tahay isha tooska ah ee micro iyo nanoplasticska lagu qiyaaso cuntada. Inta badan ee saynisyahanadu eegaan micro iyo nanoplastics ama MNS waxaan aragnaa sida ay u fidsan yihiin. Kuwani waa walxo yaryar, aad u yar in la arko oo ay sii daayaan polymers kala duwan marka loo isticmaalo ama lagu jibiyo deegaanka. Caagadu waa meel kasta oo bulshadeena casriga ah ka jirta, waxayna siisay hal raqiis ah oo si fudud loo soo saaray wax kasta laga bilaabo kaydinta ilaa dharka ilaa alaabta guriga. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay waxa ay caddaatay in ay iska caabinteeda hoos u dhigayso. Macnaheedu maaha in ay tahay wax aan macquul ahayn in ay ku burburto jajabiyo yaryar kuwaas oo si fudud u sifeeya habnololeedyada deegaanka. Daraasaduhu waxay heleen microplastics jirka bini'aadamka oo dhan oo ay ku jiraan mandheerta. Waxaa laga helay hubin kasta oo weyn oo ku jirta jiirarka oo ay ku jiraan uurjiifkooda. Maxaa ka dhigaya tan xitaa walwal badan ayaa ah in aan haysano fikrad aad u yar oo ku saabsan saamaynta caafimaadka in kasta oo aysan u muuqan rajo. Daraasad la sameeyey sanadkii hore ayaa lagu ogaaday in bukaanada wadnaha iyo istaroogga ee leh hooga sare ee microplastics ee huurada carotid artery ay si weyn kor ugu qaaday khatarta dhimashada. Zimmerman iyo asxaabteeda ayaa baadhay 1.3 daraasadood oo baadhay joogitaanka walxaha caaga ah ee cuntada iyo jilbaha cuntada. Daraasadahaas waxay ka soo saareen 6 oo galmood oo ku saabsan maqaalada xidhiidhka cuntada, kuwaas oo 9% ay sheegeen joogitaanka MNS. Gelitaanadaas ayaa sidoo kale lagu soo ururiyey dashboard la shaandhayn karo oo qof kasta geli karo, taasoo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay guriga ku soo galaan noocyada kala duwan ee agabyada xiriirka cuntada, laga bilaabo baakadaha ilaa dhalooyinka dhallaanka iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo caag ah. La xiriira dhalooyinka dab ahaantii waxay ka kooban yihiin microplastics badan. Saynisyahanadu waxay heleen xusuus gaar ah. Cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in cilmi baarisyo badan ay ogaadeen in qaar ka mid ah walxaha balastikada ah ee dib loo isticmaali karo sida makiinada melamine. Qadarka microplasticska ee la daadiyey ayaa kordhay daqiiq kasta. Tani waxay soo jeedinaysaa in kululaynta soo noqnoqda iyo nabarku ay kordhiso heerka ay alaabtani hoos u dhigto. Cilmi baarayaashu waxay kaloo huseen in cuntada aadka loo farsameeyey ay ka kooban tahay microplastic ka badan cuntada la warshadeeyey. Sababta tani waa mid fudud. Tillaabooyin badan oo hawayntu waxay ka dhigan tahay soo gaadhis weyn oo ah qalabka hawaynta cuntada ee balastiga ah, taasoo keentay in dhayo badan la soo saaro badeecada ugu dambaysa. Natiijooyinkooda ayay cilmi baarayaashu sheegeen inay si hoogan u muujinayaan in aan Kaliya la damaanad qaadin cilmi baaris badan, laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wax badan la sameeyo si loo yareeyo isticmaalka bacaha ee baakadaha cuntada iyo diyaarinta. Daraasadeennu waxay muujinaysaa in shuruudaha isticmaalka loogu talagalay ama la arki karo maqaalada xiriirka cuntada ee balastikada ah ay ku sii dayn karaan miyada cuntada ayay ku qoraan warqadooda. Ka qayb qaadashada maqaalada xiriirka cuntada balastikada ah ee soo gaadhista bani'aadamka ee hadda macadda waxayna damaanad qaadaysaa baaritaan dheeraad ah. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa sidoo kale lagama maarmaan u ah in la dhiso saamaynta caafimaadka bini'aadamka ee la xiriirta soo gaadhista MNS, laakiin hab taxadar leh oo loogu talagalay in lagu xadido soo gaadhista bini'aadamka ee MNS oo ay ku jiraan maqaalada xiriirka cuntada waa mid caqligal ah. Waxaad ka geli kartaa dashboardka isdhexgalka halkan oo warqadda waxaa lagu daabacay sayniska cuntada.